بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شاهد inantu inta badan markay wax barato talo ma la maqlay hataa soo hadlaba codkaygu iska dheeriyay su'aashaas waxay noqonaysaa inta badan waxaynu aragnaa hablo markay wax bartaan oo heer jaamacadeed gaadhaan maaha hablo oo dhan maaha wiilna waa inar oo kamid ah inar oo kamid ah weeyaan maaha hablo oo dhan inta ay kamid ka markay wax bartaan waxa weeyaan waxay ku xirmaan dad iyo u ololeeya feminism ka waxa la yiraahdo waxaan imika ka hadlayaa yaani dumarnimada iyo in rag la colaytamo feminism kuma aha dumarnimada in la dhiirigelinayo empowerment lagu sameeyo laakiin waxa in la colaytamayo rag la colaysiinayo gabadhii la colaysiinayo taariikhdeedana wareer wada akhriin kartaan wad Google gareyn kartaan qaabka inantu uga gudbi karto caqabadaha maanta wilna dumarka haysta waa caqabadaha noocaas oo diinteediba shubahaad lagu gelinaya waxa weeyaan qaabka looga badbaadi karayaa waxa weeyaan in ay inantu iska dhisto diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqoonteeda number 1 number 2 waxa akhriisa dad diintiyo kaliya taad iska dhisto laakiin aanad waxba akhriyin waxa weeyaan caqabad bay kugu noqonaysaa inta badan rag baa wax yar akhriya la yiraahdo laakiin dumarku way ku yeelitaan xagga wax akhriska marka dumarku aad waxay ku dhiirigelinayaa ablaayibaatiin walaalahayaatiin inaad wax akhridaan wilna aydan akhriin bugaagta la tacalluq philosophy iyo waxyaalaha yar iska liitay laakiin aad akhridaan cilmiga dhabta muxuu yahay waa cilmiga diinta waayo wax kasta waxa yaani asal oo ka yimaada waa diintood kaga jawaabi karaysa qodobka labaadna waxa weeyaan in ay inantu iska ilaaliso inay ka qayb gasho ama ay la saaxiibto inan kasta oo barnaamijyada noocaas ah feminismka la tacaaluqda yaani aba ka qayb gasho sababtoo ah dumarku aad bay isku saameeyaan marka saaxiibtinimada la eegayo yaani hablo badan asxaabtoodii waxaan baabiyay dan maxay noqotay in mustaqbalkeedu uu mugdi galo marka inaad asxaabta wanaagsan aad mar kasta doorato rag iyo dumarba yaani way isku dhiirigelinayna iyo inaad wax akhridaan way inaad wax akhridaan waxay idin suurtagelinaysaa inaan la idin tagi karin oo sayro fudaan la idin tagi karin aad iyo aad bad maasantiin dhamaantiin